لكن دكان كاس وحرب لو قلت دونا إنه شباب كجر عمر ماشاس قوارج كجر أصلا واحد حبذا لو قلت أصلاً وحنا حبذا كريدا وحنا مقالها سفر ودن مرحوم كعيد وقرقارس أو قادس مله بهال عجيبة ماشى تالو وأنا ما قاعد أقولنا تال لكن كل ولا حتى أنا ماشى أنقص وحاي وخطرة ما يهي ماندورية واي ما أهن ماندورية هذا يهي ماندورية دكده كمسود دقين مركب لغم سو قادين دولته عنشور كما قادتين معناه إنه عبسين وحكوا عبداس حبذا كوسع عتمش أسجل يبا كودين وعبسين ما بدري ما يبا ديوس منو عبسين ما بقول حبذا ماشى هكذا عيسو إن أسقول عكت eedeysana cabdikariin xuseen maxamed samuurey dukaankiisa waxa uu ka tilmaamnaa dhammaan kuwa kale liidoo cabdicasiis ku yaala waxaana ku dhammaan nooc kasta oo adeegyada adigoo dhaqaaqin hawada kugu socodsiinaya sida xashiish kiniinka blue bilibili black hash codeine syrup iyo feeb ilaa isaan hoose ama aqoon weji ah ma heli doontid mana lagaa iibinaya adeegaas madaxgalka ah gudahana waa meherad ganacsi oo lagu iibiyo cabitaanada sida Fanto, Coca-Cola, buskud Abu Walad iyo adeegyada kale mana dareemaysid meel draagis inaad joogto askar uu hogaaminayo Deblenisa Sanuuri Cabdirasaaq Warsame ayaa u soo adeeg doontay dukaanka eedeysana Shamuuri ayna qayb ka yihiin Deblenisa Shaafici Xuseen Mire Deble Xooga Cabdixamiid Carab Cusmaan Indhacade iyo Khalid Maxamed Sheekhdon oo hadda marxuum ah dhamaantood gudaha ayay u galeen dukaanka laakiin eedeysana Shamuuri oo ay ku taagan tahay xisaab hore iyo taag soo dhacay habeen horeeyay ayaa bistoolad Biljim ah ula baxay kooxdan dukaankiisa soo gashay oo lahaa eedeysana Maxamed Nuur Cabdullaahi oo isna niisa ka tirsan Sanuuni iyo marxuum Khalid iyagana isma waalin askartii ilaalada shacabka ayay ashtako u geeyeen waxbase lagama qaban dacwadooda marxuum Khalid qorigiisa ayuu soo qaatay eedeysana Shamuuri ayaa se u diyaarsanaa oo markiiba laba baalooto luqunta iyo wadnaha kaga dhuftay marxuum Khalid Maxamed Sheekhdon goobtana ku geeriyooday intaasi kadib si aan kala sooc lahayn iyo wax uu turid shacab ah ayay rasaastu u wada sharqantay waxaana oo ka wada qaaday Sanuuni Shaafici iyo maqana Indhacade oo 3 qasnadood isku bedelay taasoo ka dhigan in midkiiba uu isticmaalay 9 baalooto xabadaha AK47 wixii xigay ee natiijada ay soo baxay ayaa noqday goobtana ka dhacay dhaawaca eedeysana Shamuuri oo 11 baalooto la hubiyay waxyeelana ay ka gaartay kaadi haysta ilaa uur ku jirta iyo dhaawacyo 3 qof shacab ahaa midkoodna sariiryaal uu yahay hadda dilka si ka soo geysan uma geysan daroogana ma gado kana hubka sharci darra biskoola weeyta lagu dhaho weey hub oo wiilkan meeshii iga tagay wad oo dukaankii iga tagay oo masquul oo ka aadi ayaa wad xabadaha rid maxaa keen xabadaha lagu dhiftay aye markii lagu dhiftay xabada ridaan xabada rid warid taqaanay hore u taqaanay ciidan ma ahayd markaa ciidan ma wiilga mana laakiin waa ciyaal xaafadeed ahana magaba xeebaha ku bari jiray ku barat hubka darooga kama ganacsi ma ka ganacsi ambulance ayaa maxkamadda soo hor istaagtay waxaana laga soo dejiyay wiil daayar ah oo dhawaan ka baxay dugsiga sare jiif mooye xitaa aan fadhi karin dhibane Amiin Cali Xasan oo hadda sariiryaal u ah dhibkii ku gaaray liido xabadana dhabarka kaga dhacday taasoo sabab u noqotay in uu lumiyo awoodiisii jirka haweenadu kamid ah yar waxa isla soconay oo walaalkay ah markaas yarkii markay barnaamijka noo dhafaaday aniga asiga meel hotel ku jirnay DJ-nimo iyo waxa ka shaqeeynay markaas kadib markay hawshan noo soo dhamaato soo wada baxnay yarkii wuxuu dhahay meeshan igu sug dukaan meeshan galaa dukaankii uu galay waxaar kadib yarkii markuu waayay inuu jawaab soo siiyo waxaas dhahay dukaanka gal soo fiir inuu joogo in kale meeshii igu la qabsatay marka waxa ka dhacay meesha xabado yaas xabadaha maxaa isku magaal wallahi ma aqaan aniga wadada isticmaalaya waa isku soo maray xaafadayda rabina aad dukaanka xabada ay ka bilaabanaysa oo ku dhaxdhacaysa baa joogtaan marka muu gal yarka yarkii meesha soo galay wuxuu dhahay waxay intii uu sug waxa soo gadanaa aye markuu soo daha arkay sidii u galay dukaanka daba gashay soo fiiriyaas yarkii waa waay ma joogo ku jirin meesha ku jirin anigana meeshii masiibada igu la qabsatay adiga ciidan ma ahayd ma nin hubaysan ma ahayd qor wato maya waxa sanan ciyaal xafadeeda iska ahay
habeen jimce ahayd baashaala u soo aadnay aniga yarka kale markaas maxaa ka wax shaqaynaysa ma ka shaqeeyaynin markii aan iskuul dhameeyey caarab inaan jaamacad iyo wax galo see wax ku gaareen marka intee wax kaaga dhaceen dhabarkii iga dhacay dhabarka dambe xabad kaaga dhacay aa caafimaad ahaan maxaa ku gaaray marka dhaqaatiirta maxay ku sheegeen dhakhaatiirta wallaahi waxay dhaheen wax ma loogu qaban karo meeshaan dibadda ma tagta haa masar ayagana waxay dhaheen saas camal wax ma ka qaban karo markii xabadihii iswadaarsanaa kugu dhacay miyaa qof mise dadka ma taqaani isxabadihaadi ma aqaano isxabadiha ma taqaani wejigiisa ma arkin marka yarkii oo isla socoteen oo dukaan kale ma joogaa oo yarkaas la soconaa ma dadka la dhegeysaa ma ku jiraa ma joogaa ma yarkaas xaafadu jiraa intii waxaan bilaaban ka hor baxay miyaa haa ka hor baxaba intii igu sugo dhahay ani inoo soo laabahayo ma leeyahay toos u baxay maxaa maxkamadda ka dalbanaya wallahi inay xaqaygii soo dhiciso ama maxkamadda ka dalbaha aad u mahadsantaha allah ku caafiyo maxamed meeshaan dhacdaa ka dhacday dadaa ku dhintay dad badanna waa dhaawacmeen saddex qofna waa dhaawacmay qofna waa dhintaa leeyahay xilli dambana waa ahayd adiga intaa joogta markay wax dhacaya see wax u dhaceen horta baa ku dhaho meesha aan joogay ee wax ka dhaceen horta beenaa kuu sheegay wow meesha horta xabada horta way bilawdeen ani geesaa maraa meesha meel u dhow agteedaa joogay xabadaa dhaceen xabadii adee dhaceen ana ubmaa wataa dadka orteenaa ka mid ahay maxaa qabataa maxaa tabartaa ani mootoola bajaajaa wadaa marka la kala orday meesha meel u dhow aa yar dhaawac igu imaaday yarkii meesha igu imaaday dadka oo ku tilaabsaa arkay yarkaa gargaar u fidiyaa qaaday iyo yar kale isbitaalkaa geeyey laba qaad isbitaalkaa lagu imaaday meeshaa lagu xiray dhowr iyo 20 beriyaa xirnaa aad naftigaaga meesha wax ka dhaceen oo laysku xabadinayo ku dhow dheed maxay ahayd meeshaas maxay ahayd meesha horta meel oo waxay ahayd oo meesha mootooyinaa buuxeen iyo dad iyo nabad sugidna way joogtay dukaanka shamuuri ma taqaana ana cabdicaiis markaas waa ku cusbaa markii yaa soo dego marka meeshan mootooyin ayaa lagu horusa mootooyin ayaa leha mootooyinkii xabadii hadda dadka kala ordeen yar oo magaciisa shoo dhilan lahaa maleha oo dhaawaca waxa ugu imaaday meel oo wax ka dhaceen meel ka dhow oo soo dhaawac oo dhiig ka baxay dadka oo ka tilaabsay arko ana waa fiirsay marka waa qaaday mee qof qaade laba qofood qof dhinta ma ku jira laba ma mid gacanta ugu taala midna lugtay gacanta ugu taala maleha ma jooga ku inta ku jira ma way maqayn markanna waxaa la soo gaaray beer masheegtadii doorkeeda CCTV camera iyo xeerlaaliye kabtan cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare goobta waa goobtiisa ganacsi wax hadda wada hadalka ku jiro waa maxamed asad iyo cabdullah ramcad asigi iyo waxa loo kala dabqaadaa iyo waxa loo kala dabqaadaa ninka la yiraahdo sahnuuni iyo shaafici iyo ayaga loo kala qaadaa garnaqsi hadda meesha ka socdo laakiin labaduba koodhini cabsan yihiin macnaha war ma beelayaan meesha marka waxa ka dhici doono maxkamaddu ay arki doontaa meesha waa iska taagtaagi waaye koowaad iyo xaaladda goobta sida ahayd mudug gudoomiye goobtan waxa taagan oo qorayga wato waxa waaye shaafici la wadaag oo ninka la taaga shaati cad ila wadaag waaye shaafici la wadaag waaye shaafici la wadaag inuu yahay noo sheeg isaga noo sheegay cid kale marqaati loo qabo waa sidii sheegayay marag inta aan keenay mootooyina joogo goobta booqina wali waa jiriyaa marka waxaan rabaa maxkamad inaan ku tahay marabo saan horta goobta u taallaa goobta wax ka dhicin saan waaye ninkan waxaa lagu qancinaa wali la leeyahay niyow joog dagaalka dhaaf nabad sugidaa tahay dalkaa kuu baahan waxaa lagaaga baahan yahay furimaha hore ma ahan dukaankan ninka dukaanahana waxaa la leeyahay niyow bastooladan dhig may anoo shacban dagaalama idhaaf koo dhinac cabsanaya waxaasoo daldala marka waxyaabaha uu cabsan yahay keenayso in bastoolad iyo qorayba uu ku dagaalamo eedaysana shamuuri uu ku dilo marxuum qaali marka waxaan rabaa inaan toos dagaalka u geeyaan rabaa markaan saa dareemayso waxoogaa meesha waa isbedeshay oo la soo camiray doodda weli waa socotaa meeshaas dadka soo baxbaxayaan waa dukaanka shamuuri weli dabqaadkaa socdo oo loo kala dabqaadaya nimankan ishaysto meeshaas waxaa qoray hadda soo fogsaday waa maxamed waxaa waaye sahnuuni waay ninkaa qorayga watani oo hadda meesha gelaayo waxaa waayey ninka la yidhaha shaafici la wadaag waaye kan jaakadda waddo hadda galaya marxuumka waaye marxuumka marka waa la soo jici doonaa dhuuntan iyo wadnaha lagu soo dhufan doonaa maxamed asad waaye baashaas wax wad koofida kaaboyda waa kan marxuumka waa kan mudug gudoomiye waa kan jaakaddaa ku cuslaa doonto halkaasuu ku dhici doonaa halkaasuu ku ruux bixi doonaa oo ku dhiman doonaa waa kaas waa meesha ninka ku dhacay waa ninkaas soo laabanaayo waa sahnuuni waaye oo kaaboyda wato dhankaas kale ninka dagaalamaayo waxaa waaye shaafici la wadaag waaye ninkan waa cabdixamiid indha caddo waaye oo hadda dhahay qorayga isii qoray ma wato qorayga isii oo leey laakiin sahnuuni qorayga ugu dhiibi maa meeshaan wuu ka biyo diidaa
asaa xabadaha ku ridaay gudoomiye marxuumka meeshuu yaalo meeshaas waa dul marayaan qaadi maayaan saaxiibkood waay halkaas waxa soo aadayo waxaa waaya shaafici wadaag waay wuxuu qoriga soo dhiibi doonaa marka indhacad waa kana indhacad hadda qoriga soo dhiibi indhacadde ilaalo qaran uu ka tirsan yahay waa ninka xabadaha meesha ku qufaayo marxuumkii cid u gargaarayso oo qaadaysa ma laha laakiin dukaankaas waxaa roob looga dhigi doonaa inuu shabaab ku jiro camal meeshaas qawaarija ku jiro asleeda waxaas xabadaha loogu ridayo asigana wuxuu xabado ku ridaa waxa maqaayadaha safan oo dhan oo ku ridaa marxuumkii weli waa yaallaa saaxiibkood waaye geeska inta galayna haddana xabad ku ridaan waa kana waxaa soo laabta haddana indha cadda waay sahnuuniyaa la socda markaa gudoomiye sahnuuniyaa la socda derbiga u galaa sahnuuni wuxuu ogaanaa in meesha dukaankii xabada iga soo dhici waamay oo dhaawacmay eedeysana shamuurey meesha uu geli doonaa marxuumkii qorigiisa oo meesha ku jiray ayuu soo qaadi doonaa waa kanaa sahnuuni waaye kaaboyda ninka wato waaye marxuumkii weli waa yaallaa gudoomiye waxyaabaha cajiibkay ka mid tahay wax u gargaaraayo ma laha waa kan sahnuuni waaye indha cadda waaye sahnuuni waa galaa macnaha inuu cabsan yahay waxaa ku caddaynaysa xabadaa ku socota meesha asaa gelaayaba koodhi inuu cabsan yahay maba dareemaayaba diyaas buu inuu cabsan yahay maba ogaba xabadda meesha ka dhacayso in asigu dhici karto wuxuu aaminsan yahay inuu yahay saraf iyo shub inuu yahay macnaha waana daraagiska keenayso meeshaas qofaa ku jiro oo qoray wato shamuurey oo maatoona ka dagaalamaya shaba uu leeyahay qoriga uu soo qaadana waxyaabaha ka dareemaysa gudoomiye waxaa waaye daraagiska dhibaatada uu leeyahay kamid tahay sida sahnuuni uu la yaaban yahay wax ficilka hadda uu sameeyahay asaga hadda la yaaba haddaa weydiiso waa macangegnimo qoriga uu soo qaato waa kanaa waa kan waxaa qaaday indha caddaa qabsada qoriga haddaa marxuumka gargaar loo fidinaa marka yaa qaadaya waa sahnuuni maanta oo dhan ma qaadin markuu dhintay ay hubsadeen inuu dhintay ayay sahnuuni waa kana haddana mar labaad indha cadda waa kanaa gudoomiye meesha qolii qoraya lagu hayaa sahnuuni waa kaas gudoomiye dukaankii hadda la galay indha cadda waa kaas soo qoriga watuli waa ka sahnuuni feeri waxbadoo ku rida dadaa ku jiro meesha waa kaas gudoomiye derbi walba xabadoo ku ridaa sahnuuni waxaana ka dareemaysaa inuusan qalbigiisa joogin uu yahay qof daragis ay hogaaminayso waa kaas haddana waa bilaabata dhinacaas waxaa kasoo ridaa shaaficile wadaag waay goobtaas marka waxaa yaallo dhaawacaa yaallo mootada agteeda dhaawacaa yaallo dhaawacaas oo goobta yaallo ayaa la qaadi doonaa waana saa dareemaya inuu yahay amiin waa dhaawacaas la qaadi la-yahay ee miir daboolmay ee dhulyaalka ah waay mootaasaa lagu qaadi doonaa goobta marka hadda saas dadku iskugu soo baxeen maanta oo dhan difaaca lagu kala jiro marka dhaawacaas mootada la saaraayo baradhiska naqday ee meesha ku dhaawacmay waa amiin oo aan ka warhaynin waxaa meesha ka socday ee dukaanka dhexdiisa kusoo dhaawacmay ee markuu soo baxana meesha ku dhacay gudoomiye marka arrintan waa arrin khatar ah eena sabab u tahay daraagiska waay marxuumka dhintay ee sana shamuuri gacantiisu ku dilay ee aad arkayseen inta baxay jaakada siibay kabacdi ruux baxaayo waa kana marxuumkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa sahnuuni iyo shaafici ila wadaag shaafici ila wadaag iyo sahnuuni waa arkaysa gudoomiye 10 daqiiqo korkiis ku dagaalamay saaxiibkood gargaar uma fidin ma qaadin markuu dhintay hubsadayna qaaday gudoomiye waa arxan darrada nimankaas eedeysanayaasha ay ku dhaqmeen oo bilaadanimada ka fog adiga laba habeen isku xigtaa meesha dagaalku gelaysaa lagu dhahay waxaas wax kama jira laba habeen isku xigtana dagaalka ma gelin aye waa kaas hadalka ma dhegeysanayno dadda waa dhegeysanaya ani habeenka labaad habeenka koowaad iyo habeenka labaad oo sheegaya waxaas ma jiraan hal habeen leewaayo hal habeen lee tagtay aye habeenka falkaan dhacayn leewaayo maxaa dagaalka dhan ku gooshay inta waxaas xabada maxaa loo furaa anaga xabadaha iska furna maahan xabada nafteena ku difaacayna waa kaas anagana waana la xabadeynahay ninkaana xabadeynahay anaga wax xabada zaid u baxay xabada badan rideen xabada badan ma ridin xabadahaas wax shaqa ma kulli mudan gudoomiye yani haye yaa shaqa kule goobta markay xabadaha ka dhacayeen ma ku sugneen baani gadaala ka imaaday yarkan saaxiibka dhaawaciisa le wax ka qaaday xeer ilaaliya hadda soo sheegayana kaamiradu daare magacayga loo ku dhiganaa ya magacaygu sheegaya macnaha in ani kaamirada ka muuqdo laakiin ka muuqdo ani qofkaas si fiican loo fiirsho waa kaa diriiska hadda qofkan oo tusay iyo diriiska markii ani soo xiray aawatay laba kala haayeen saldhigga cabdicasiis boorka lagu sawiraani diriiska taxgaas laga ogaanaa diriiska qofkan watana diriis kaleeto waayo adiga meesha maxaa ka doontay aniga cabdicasiis la degana
saaxiibada ma la soconno maxaa saaxiibadii ay kale ii yimaadeen maxaa la isku dagaalo waxaan xabadaan dhabkeen goob dalxiis anaka dalxiis la u soconaba liidaasii gelayna sagaal saaxiibin mal dalxiisa waa deganaaba xaafad jidbaanta agtiisaa deganaanay wax miil ahan ay laakiin waqtina bay ahayd shamuuri maxaa isku qabateen idinka shamuure ma isqaban ba ani qof ma la dagaalamin ani waxa walba caddaani markhaatiyi rabaan adiga maxaa biskooladaad u geeyey shamuuri gudoomiye aniga haddii CID la tago taleefankeyga dib loo raadin waa la heli karaa waa hore saas oo kale anoo suuli ku jiro bisoorda ay ugu fakato 14 days kaliya ay u dhaxaysa habeenkoo kiiskan dhacay then sidoo hadda qareenkeyga sheegeen aniga ilaa iyo 12 year aan sirdoon ka tirsanaay weligeyna macnaha xataa iska daa meel qaldan oo taagnaa ama gabaroo si qaldan u fiiriya xataa meel ay igu qoran tahayna male markaana habeenkan habeen oo Friday eed magaaladan liida iska soo aaday gabadha ila socotay meesha xeebtaan yara joogay markii adiga 8 saac amal eedan gabadhii waa ka soo tagnay sida Friday-dan meesha waa iska magaalo waa wada garanaysaan gabadhii baa bajaaj saaray markaan ka soo laabtay yarkaan shamuureyna wiil aniga aan family friend aan nahay asaga Sacuudi isla joogi jireen oo aan ku bartay bajaaj la bas marka dukaanka sidaan ugu soo leexday gasac cabitaan aan ka furtay oo cabitaanada la cabo caadiga ah meeshii aan fadhiistay lugta waxa iisaneed qaybta miiska koro moogiya qaybta hoose oo dukaanka oo alaaba la saartay iisaneed ee bistoorda meesha iisaneed marka maadaama oo sintaan iyo fiidiyoguna waxa laga arki karaa taleefkeyga ku jira oo CID u yaala sintaan iyo xabada iga tii lugta qaybtaan horaan ku wada bistoolada meeshaana bir lagu ma qaadi kar sida caadiga xabaarna xeebtii waxbaa la joogo marka ugu dambeynka markaan dukaankii soo galo meesha kaliya uu kalsoon aan isdhaa ama aan garanahay xabaara meesha ku jiray waxa cabitaan ku cabay meerad soo horjeedo wixii CC hadii si fiican loo bar xataa aniga teemka aan dukaan ka tagay teemka wax dhaceen wixii hadii si fiican loo bar wax qarsoomi kara ma oo meesha kaamirooyin caalami ah ku yaal suuliga aaday asaga xataa waxa gacanta ka saaran male dhinacaan dukaanka albaabkiisa ku fadhiyo oraa alaabta ila soo caayir maadaama hadda korna bisoorad ee si easy saas oo kale igu fakatay meeshan lisbaaray laftirkeeda aan galay oo meherad ay tahay waana qaybkan ilaaha kulay ku cilmi leh waa 15 minute ma dhamo inta aniga aan ka maqanahay dukaanka iyo ninkan inta wax dhacaya sidaan ku sheegnay qaybka ilaaha ku cilmi leh mana isleen oo hadii aan culayskaas qabo aniga igu fakata hadaa deer wixii kama aan tagi leem sidaan ku sheegnay aniga ilaa 12 sano sirdoon ka tirsanay weligeyna wax yar oo eeda meel igu qorantaa male dib baa loo baari karaa marka xaqiiqada jirto gudoomiye waa kaas aad aan u maasanta aniga sinta warka aad ma isku dhifto macna inta joogta marka xaafadaan jooga aniga igu fakatay xaafadaaji saas darteed marka taxadir suuliga maadaama aan galay taxadir aanan u dhigay inuu dhibkaan waxaan imaanay daawaan kama aan tagleen feebka ku jiro waxa ku jiro mid gudoomiye waxyaabahan koodhinti waa tana waa sheegay maanta oo sharaxay waa tana koodhinti mid gudoomiye waxyaabaha cajiib kale maxaan gudoomiye waxa waaye markii aan tagnay goobtaas waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah geedkan waa microphone laakiin waxa la galshay bilibili waxyaabahan dhan marka dukaanka tagto waxa ugu tagaysaa faanto caafi iyo waxa ugu tagaysaa sameecadahan iyo microphonadan ugu tagaysaa waxaas leedahay dukaankan sheeb ahaan xanjo kuleel waa lagu gadaa baash waa lagu gadaa electronic waa lagu gadaa is leedahay laakiin ninka afaraha yaqaan wuxuu leeyahay microphone soo qabo leeyahay microphone soo qabo miinis waa bilibili soo qabo bilibili waa kana inta laga soo baxsho muddo gudoomiye guud ahaan marka aragto ciyaalka yararka la siyaa baasha qof ciyaal loogu tala galay laakiin daraagis ana loo isticmaala wadanka qatartidan leedahay wuxuu leeyahay ilmiya soo gata hadda wada uu leeyahay laama amni waa eedeysar shimuri marka waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah baashan xashiishka iska arki maysid dukaanka waxa ku yaalo oo hadda kilibka uu saamix waayay waxa la geliyaa sumac hoostiisa la geliyaa kor marka ka aragto sumca iyo joodariya yaal meesha waa ku fadhiisanay caadi lambar 2 heeb ahaan marka fiiriso eedeysar shimuri gar weyn u deedsan garka weyn Soomaalida badan waxay ka aamintaa qof wadaada oo baalkii laakiin isagoo garkaas leh ayuu baashan gaday mid gudoomiye waxyaabaha marka ma arkaysid baaday laakiin baarista xafiiska xiraalinta oo u tababaran in laga daba tago iyo goobaha la galshaba ayaa soo saaray waana dukaankiisa buugan waa buuga ay ugu qoran yihiin dukaankiisa la soo qaaday waxa ku qoran deemaha ka maqan waxyaabaha ka maqan carfiso $2 carfiso waxa lagu qoraa deema waxyaabaha lagu kala qaado waxyaabaha soo ku qoraa laakiin tan lagu qori maayo maxay laama amniga soo qabtaan uu akhrina hadii marka laamaha sharciga iyo laamaha amniga akhrina aan og yahay deen looma kala qaato baasha dhiikash waay tur waa bis dhag waay mid gudoomiye in goobta aan tagnay waxyaabaha cadeeya waxa kamid ah Shamuure inuu meesha ka dagaalamo sheeg waa in la helaa rasaas iyo fooq in la helaa
waxaa keennay muu guddoomiye rasaastii meeshaas ka muuqata sidoo kale bahal cajiiba meeshaa taalo waan magaceeda aqoon hataa laakiin aad u dhawaada xataa ani meesha aan ku suuxay oo khatar ah tubaak shiishid soo hadda baaraa sheegay bahal khatar waay soo hadda baaraa sheegay waxyaabahan marka dukaankiisa laga soo qaaday marka qof waxaan cabay waa ka suurtowdaa dukaanka saa aragtay loo xabaday waa qaadanaysaa maxaa yeelay waxaana cabtay oo khatarta ah oo jawigaaga bedelay maxkamadda marka waxaa la wadaagaynaa feelkii dhammaa ee laga diyaariyey nimankaa waxay dhaawaceen amiin dhakhaatiirtu waxay ka diyaariyeen ilaa ku dhawaad 3 feel oo caafimaadkiisa ku saabsan dowladda masar isbitaal ku yaalo ayaa ka diyaariyey waxayna sheegeen inay waxba u qaban karin waa masar gudoomiye waxaan la wadaagaynaa warqadda isbitaal madiina ay ku cadeynayso dhaawacan inuu yahay darajada 3aad oo dhaawac culus ah sidoo kale waxaan maxkamad la wadaagaynaa marka aan dhaano sana shamuure bastoolada wati uu yiraahdo sana maxamed bastooladaydi ma waxaan haynaa bastooladii nisa ay ku qoran tahay kuna qoran yahay ninka la yiraahdo sana shanaad oo bastooladan ah waana bastooladii lagu dilay marxuum qaalid waxaan maxkamad la wadaagaynaa mudug gudoomiye dhaawacan inuu culus yahay iyo waqtiga la keenay isbitaalka warqadda isbitaalka cadeynaysa saan loo dhihin masagawa ay ku soo dhaawacay albaabkaas uu soo xiro sidoo kale waxaan la wadaagaynaa marxuumka dhinta dhahno waa in la cadeeyo shahaadadiisa dhimashada waa tana waxaan maxkamad la wadaagaynaa sidoo kale sawirada dukaamada iyo aan soo qaadnay si loo ogaado magaca Ceeltire inuu asiga la baxay in kale dukaanka Ceeltire ayaa la yiraahdaa waa dukaankiisa weli xafiisku u xiran yahay weli maxkamadda way tigi kartaa hadeertaan oo furi karnaa waxaa laga yaabaa qaarkood daraagis qaar in laga helo waa xiran yahay xafiiskii maxkamadda u xirto way marka aan ka cusubna kadib alaabtan waxaa soo qaaday dukaankaaga ma gado ku ogeyn mana gadeen haa midda labaad dilkaan aniga mise bareer muu geysan dadkan waa nisab gaarne hubu wate anigana hub ma wadan hubka wiilaa meesha ugu tegay axmed nuura waxaa ugu tegay meesha ila fadhiye masquuloo ka aaday masquusha intuu ku maqnaa ayuu arrinkaa dhaca hadduu joogi lahaa mayna dhicin laami baaris qoto dheer oo lagu soo helay raadadka ku gadaaman galkan ayuu fadhigan ku sharaxay natiijada soo baxday baare saadaam cabdulaahi cabdi oo ka tirsan CID booliiska Soomaaliya si dhaba markaan u baarnay kiiskan markii aan wax ka qorno dhinacyada dacwadda markaan tagnay goobta dambigu ka dhacay oo aan ka soo qaadnay maandooriyaal kala duwan oo lagu gadiyay dukaankaas iyo fooqyadii laga riday bistooladaha iyo qoriga bistoolada iyo qoryaha lagu dagaalamay markaan wax ka qornay markhaatiyaal goobjoog ah oo isugu jira ciidamadii goobtaas ka ag dhawaa iyo dad shacab ah oo noo cadeeyay qaabka uu dagaalku u dhacay iyo waxa uu ka dhashay dagaalkaasi oo sababtay dhimashada marxuumka iyo dhaawaca 3 qof oo ka mid yahay eedeysanaha dagaalamay ee shamuurey markaan aragnay muuqaalka kaamirada CCTV ee ku xunay dukaanka hareerihiisa ay duubtay markaan aragnay shahaadooyinka shahaadada dhimashada isbitaal Madiina iyo cadeymaha dhaawac muujinta ee isbitaal Madiina waxaa noo soo baxday qodobadan hoos ku xusan kow in eedeysana shamuurey uu fal dil bareer ah u geystay Allah u naxariistay marxuum dable nisa Khalid Maxamed Sheekhdon sidoo kale in eedeysane shamuurey uu isticmaalay bistoolo sharci darro ah oo uusan wax ruqsa u haysan sidoo kale in eedeysane KS Maxamed Nuur Axmed Cabdullaahi bistooladiisa uu si sharci darro ugu dhiibay isagoo ugu dhiibay inuu isku difaaco ama uu ku dagaalamo eedeysane shamuurey sidoo kale eedeysanayaasha kale ah dable nisa Sahnuuni Cabdirasaaq Warsame dable nisa Shaafici Xuseen Mire iyo dable xooga Cabdiqani Carab Ismaan Indhacde ama Cabdixamiid Carab Ismaan Indhacde oo baxsad ah isla markaana maxkamadda ciidanka qalabka sida ay u jartay waaran soo qabasho ay si wada jira mas'uul uga yihiin dhammaan dhaawacyada 3 qof oo uu ku jiro eedeysana shamuurey isla markaana waxa la isku dagaalay ay tahay maandooriyaha iyo hubkii uu sharci darrada ku watay eedeysana shamuurey mudana gudoomiye baaris intaas ay kaga dhanta marxuumka waxaa sheegtay in uu ahaay sarkaal ama se askari ka tirsan hay-adda niso goobtaas oo ku yeelay dukaanka ma waxay ahayd goob
si sharci ah oo uga howlgalayay ama oo u xil saaraa askariga maya marxuum khaalid halka ay dhacdadiisa ama dhimashadiisa ay ka bilaabatay waa meel hay-adda asaga oo ka tirsan yahay ayna u xil saarin in uu ka howlgalo habeenkaas ha alright maadaama marxuumka oo u galay dukaanka oo milkiyadiisa iyo maharadiisaba oo lahaa ninka la yiraahdo Shamuri Shamuri wuxuu horay u sii qabiyay soo maaha cabsi horay u jirtay oo ka dhalatay dhacdo ka horreeyay habeenkaas maya meesha hay'ad amniga ka jira hay'ad amniga u dacwoon lahaa hadii iskoolad ma soo qaateen ma jirtaa heshiisku soo gaaray kabaar ahaan oo tilmaamayo in dhacdadii kala gaartay Khalid oo marxuum ah iyo Shamuri oo dukaanla ah in maaragtay heshiis waafaqsan aayatu baqara ay ku kala baxeen wax af Soomaali la sheegay oo arkay wax dokumenti ma arag ma jirtaa dukaankiisa ganacsiga asaga lagu yaqaan asoo ku dhex jiro nin hubaysan inuu u soo galo ma jirtaa maya dukaankiisa asoo ku jiro inuusan xabada furin oo dad xabadaynin oo xabada asoo bilaabin ma jirtaa maya cid uu asagu banaanka ku dhaawacay ayadoo dukaankiisa ama banaanka uu ku dilay doocan dil loo haystaa dukaankiisa ka baxsan wax meel ka baxsan dukaankiisa cid uu ku dilay ma jirtaa xabaduhu markay isdhaafayeen gudaha horta dukaankiisa wax ku dilay laakiin dhaawaca gudaha iyo banaanba waa jiraan dilka dukaankiisa gudihiisa ka dhacay Soomaa dukaanka gudihiisa ku dhacay ha waxaa sheegtay hadalkaaga ku jiray in sarkaal loo tagay la yiri nin shacab ah oo hubeysan inta joogay waxsaas kadibna uu yiri sarkaalkii xaniihiida fuula saas waa jirtaa haday baaristaada wali aflagaada kale ku sii daray dibka loo aad sheegaysay in dib lagu geeyo soo qabato gacantaada ma ku jiraan ma baartay qoriyihii saddex qori bay ahaa ma yeeleen hay-adihii ay ka tirsanaayeen eedeysanayaashan ma la wadaagtay warbixintoodii ma gaarsiiyey ayaga baa lagu soo wareejiyay maxamed nuur waad wareysatay Soomaa ha wuxuu ku sheegay Soomaan inuu bustooladiisa uga tagay dukaanka Shamuri saas uu sheegay ha asiga naftirkiisu wuxuu ku sheegay Soomaa inuu dukaanka uga tagay bustoolada maya maxamed nuur marka ay dhacdadu dhacaysay oo xabadaha la isweydaarsanay goobta ma joogin Soomaa waa joogay wax hore oo falal noocan oo kala ama fal dambiyeed oo ku lug yeesho oo aad ogaato ma jirto Soomaa ma raadinba ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qaranka sida kabtan Cabdicasiis Cusmaan Faarax ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan lagu qaado ciqaabaha ku xusan qodobada ay ku soo kala eedeeyeen xafiiska xeraalinta 4 eedeysane oo mid shanaadna maqano uu yahay sanaad koowaad Cabdikariin Xuseen Maxamed Shamuri wuxuu dhaawacmay waqtiga sare ku xusan oo 4 bisha 7 2025 isagana waqtigaas wuxuu dilay marxuum Khalid Maxamed Sheekhdon mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysane Shamuri waa ganacsade ka ganacsada daraagiska saalaaligeeda xafiiska xilaalinta wuxuu ku soo eedeeyay qodobada hoose wuxuu ku soo eedeeyay 412 iyo 413 kuwaas oo sheegayo daraagiska ka hadlayo qofka caba ka ganacsada mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan ku soo eedeynay in uu qalqalgelin iyo cabsi gelin dadweyne uu ka qayb qaatay waxa dareemaysaa mudane gudoomiye goobta wax ka dhaceen waa goobta dadka ay u dalxiis tagaan oo muunadii magaalada mar qaar marka la soo sawiro marka korka aragta xataa niyadaada ay xasalayso magaalada quruxdeeda soo bandhigayso laakiin Shamuri meesha wuxuu u bedelay cabsi waxaan cadeehayo waa xabadaha meesha ka dhacay iyo dukaankiisa ciiltire waxyaabaha laga soo qaaday iyo goobtaas oo goob nasasho ah oo loogu talagelin daraagis iyo wax lamida si guud iyadoo mamnuuc u tahay haddana wuxuu ku gadayay afaaraan caalamiga ah mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysanahan maadaama daraagis uu ka ganacsado oo sidoo kale aan caddaynay daraagiska in laga ganacsado in qodobo ay dhigayaan dembiya sidoo kale mudane gudoomiye aanan iska dhihin aan keenay wixii laga ganacsanay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh
waxaan maxkamadda hor keennay warqaddii dhimashada oo shahaadada dhimashada ahayd oo marxuum khaalid inuu dhintay xaqiijinaysay oo isbitaalku uu xaqiijiyey marxuumkuna inuu dhintay lagu xaqiijiyey mudug guddoomiye gasar maxkamad sharafta leh eedeysana markuu dhaawacmay waa la daaweeyey dowladda ayaa daaweysay waa kaas maxkamadda hadda hor fadhiyay daawo kadib maanta waxaa laga jaasinayaa dhibkii uu geystay oo maxkamadda anagana aan ku eedeynayno maxkamaddana aan ku codsanayno inay ka jaasiso mudug guddoomiye gasar maxkamad sharafta leh intaas kadib maadaama marxuum khaalid uu dilay maadaama uu ganacsado darooga u yahay waxaan ku soo eedanay aayadda 178aad suuratulbaqara aayadda 45aad suuratulmaa'ida qodobada 434 341 342 412 413 oo dhammaantood aan aaminsanahay inuu galay si cadna u galay caddaynana taas oo ay u caddahay sida leerkan oo kale uu iftiimayo marka maxkamadda sharafka waxaan ka codsanaynaa in eedeysana cabdikariin xuseen maxamed shamuurey ee ku xukunto dil toogasho ah oo qisaastii marxuum khaalid maxamed shiikhdoon maxaa yeelay marxuumkaas ayuu nafta dhaafiyey daroogadan oo ka ganacsadaana darteedu nafta u dhaafiyey iyo dhibaatada ay leedahay waddanka wuxuu ku yahay culaysuu ku yahay dhibaatuu ku yahay fasaaduu ku yahay mudug guddoomiye dil toogasho inay ku xukuntaa codsanayna maxkamadda mudug guddoomiye eedeysanayaasha labaad saddexaad afaraad oo maqana ah waxaan si wada jira ugu soo eedeynay dhaawac culus oo wada jir ah qalqalgelin dadweyne weliba si ba'an oo aan loo meeldayin oo aan laga fiirsan oo aan loo naxdin ummadda masaakiinta ee xeebta liida ku nool ayay goobtaas loogu talagalay goobta dadweyne ee dadku inuu ku shaaxaan ku damaashaadaan loogu talagalay ayay xabado ugu fureen mudug guddoomiye waxaa meeshaas ku dhaawacmay ilaah u booga dhayo dhibane amiin cali xasan oo maxkamadda ah keenay amiin wuxuu ahaa nin lugihiisa ku socdo laakiin daqiiqado kadib wuxuu baxay asagoo wiljar saaran meeshaa markii la keenaayana waxay saareen wiljar waxaa sabab u ahaa wiljarka xataa la riixaaya aan saarine sariir saaray waa eedeysana sahnuuni eedeysana shaaficilo wadaag iyo indhacde oo dhammaantood xabadaha ay meeshaas ku rideen binahaas masaakiinka ay ku dhaawacay dhibanahaas mudug guddoomiye wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo adduun hadda hor u leeyahay wuxuu soo aaday in uu ku dalxiiso xeebta liido maadaama maalintaas ay ahayd maalin faakeysi oo maalin jimco ay ahayd maalinta jimcahana sidaan ognahay shaqooyinka iyo waxbarashadu ay fasax yihiin dadkuna ay isbooqdaan dadkuna ay aadaan meelaha lagu dalxiis tago si ay u nafisaan si ay u daalkii shaqada oo isbuuca ay u nastaan si waxbarashada ay ugu nastaan maalinkaas jimcaha ah ee dadka liidoo dhan meesha iskugu imaahayeen iyo dadka muqdisho badanaa ay meesha ku nafisaan ay tahay oo ay ku yaalaan goobo dalxiis meeshaasaa maalin jimcaha lagu diray lagu dhaawacay meeshaasaa maalin dhaawacaa dhibane amiin lagu dhaawacay ma mudnayn amiin wuxuu mudnaa rasaastii dowladda in lagu ilaasho amiin wuxuu mudnaa rasaastii dowladda in shabaab loogu celsho amiin wuxuu mudnaa mudug guddoomiye in markuu arkay sahnuun uu ku farxo laakiin maanta meesha waxaa la keenay qolkaa la soo geliyey asoo ambalaas lagu wado waxayna ahayd arrin cajiiba mudug guddoomiye waxaan codsanaynaa eedeysanayaashaas waxaan ku soo eedeynay 440 faqradda saddexaad 326 325 341 342 343 dhammaantood sheegaayo waxyaabihii gobodfalladii ay galeen qodobadii dhigaayo waay iyo dhibaatadii ay sameeyeen maadaama dhibka ugu culus uu hadda gaaray dhibane amiin maxkamadda waxaan uga cadaalad falayaa ama aan uga codsanayaa in amiin uu cadaalad helo eedeysanayaashaas inuu cadaalad ka helo sidoo kalena eedeysanayaashaas ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay ciidan kale laga saaro maxaa yeelay ciidan uma qalmaan sahnuuni iyo shaafici maxaa yeelay waxyaabaha ay sameeyeen waa gobodfal aad u xun oo aan la fiirsan karin la dhayrsan karin umana qalmaan ciidanka nisa oo sharafta leh eedeysanaha shanaad ks nisa maxamed nuur axmed cabdullaahi waxaan ku soo eedeynay fidna cinda geel inuu asaga ahaa in uu gacan siin ku sameeyey eedeysanaha koowaad maadaama uu hubeeyey hubkii dowladdana u dhiib arrintaasoo ka dhalatay in meesha lagu dilo marxuum dabla nisa
khaalid maxamed shiikhdoon oo ahaa askari qaran mudug gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh ks nisa maxamed nuur axmed cabdullaahi oo eedeysanaha shanaad ah dhibka meesha ka dhacay mas-uuliyaddeeda 100% uu leeyahay marxuumkaasna oo dhintoo leeyahay dhaawacyada meesha ka dhacuu leeyahay isaga oo loo tababaray xalinta khilaafaadka loogu talagalay in walaalihiis maadaama ay nisa yihiin ninkan uu shacab yahay inuu kala dhex galo inuu saldhig u diro waxyaabahaas oo dhan ma sameyn wuxuu hubiyey shamuurey uu yidhi shamuurey bastooladan qabso dagaalan dadkan baaba u dir laakiin shamuurey warkii ayuu qaatay wuxuu dilay marxuum khaalid taas oo dareemayso in musabib uu ahaa sababayna dhibaatadaas inay dhacdo mudug gudoomiye waxaan codsanaynaa maxkamadda sharaf kale ka codsanaynaa 297 iyo 298 ayaan ku soo eedeynay oo ah gacansiin dembi sidoo kale asagana uma qalmi ciidanka nisa maxaa yeelay dembi ayuu gacansiiyey waxa meesha ka dhaco sabab u aha waxaan codsanaynaa mudug gudoomiye dhammaantood in ciidan ka saarto oo uu ku jiro eedeysanaha shanaad uma qalmaan ciidanka nisa ciidanka nisa waa ciidan sharafan waa ciidanka shabaab ku beegsanaya sabiibi caanood waa ciidanka duqeymaha arti fulinayo in ay ku aftirsadaan ciidanka nisa oo sharafta leh eedeysanayaashan ee amiin saa aragta u galay marxuum khaalid dilay dhaawaca arta geystay ma ahan wax la qaadan karo mudug gudoomiye xafiiska xeerlaalinta wuxuu maxkamadda ka codsanayaa codsi xoogan weliba oo maxkamadda ka dalbanaya inay ay u fulisan u jeclaan lahaa inay ciidanka ka saarto maxkamadda waxaan ka dalbanaynaa inay ciidanka ka saarto maxkamadda maasantahay qareennada oo dhinacyo kala matalayay qaar ayaa codsigoodu ahaa heshiis ayaa jira oo dhaawaca eedeysanay shamuuri iyo marxuumka dhex maray eheladooda ee maxkamadda ha qiimayso mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan qareen u ahay ugu horeeya cabdikariin xuseen maxamed shamuuri iyo nisa iyo saddexa shaafici iyo saanuuni waxaan ku hormarayaa sanaha koobaad mudane gudoomiye sanaha koobaad waxaa lagu soo eedeeyey 434 341 342 413 xafiiska hareeraha guud ee ciidamada qalabka sida 434 intuu ku soo eedeeyey haddana wuxuu ku soo eedeeyey qodobo kale oo fara badan marka koobaad falka maxkamadda loo soo bandhigay oo meeshaas ka dhacay waxaan rabaa inaan horgalo inuusan ahayn 434 oo ah fal kas ah oo kas loo geystay shayga koobaad oo meesha ka saaraya waxa waaye sida wax u dhaceen markii la fiiriyo dukaan baaruhuna uu sheegay cashuurtiisa leh shatigiisa leh ay ka muuqato ganacsado inuu yahay oo inuu xaq u leeyahay inuu ganacsado haddana dukaankiisa cid soo gashay sifo aan sharci ahaynna ku soo gashay inuu wax geysto oo uu isdifaaco xuquuq asaga sharciyan shareecada islaamkuna ay siisa waaye qaanuunkuna uu siiyo waa xagga wixii loo baahnaa ma ku difaacay waa way kale ninkaas waxa meesha ka dhacaya markii la fiiriyo qaabka hubka ku socda meeshaas ilaahay agtiisu ka nool yahay maba noolaa lahaynba waa wax meesha ka dhacay markii la fiiriyo waa markii la fiiriyo shamuuri markii la fiiriyo waxa meeshaas ka dhacay marka gudoomiye qodobka marka 434 horta maba ahaynba xafiisku inuu soo qaatay waxay ahayd inuu 444 uu soo qaato oo ah rasaas isweydaaris israsaasayn oo mas'uuliyadda saas lagu qaatay ahayd sababtoo ah rasaasan dhinaca waa ka soo dhacday rasaasan dhinaca kale ka dhacday meeshaas waxa ka dhacday marka israsaasayn haddii shamuuri kaligiis uu baskooradiisa ridi lahaa hal qofba ma dhiman lahaynba sababtoo ah ilaa qof koowaad inay haleesho macquul laakiin waxa tirada badan iyo dhaawacyadan iyo waxa maba dhici lahaynba macnaheedu waxa waaye qodobka meesha ka dhacay xafiisku si kale u dhigay waxay ahayd 444 inuu ka dhigo 444 oo ah safeen mas'uuliyadda markaas xeerku wuxuu saarana loo qaato waa qodobadan kale oo ah 341 waxay sheegaysaa gudoomiye daawo khaldan oo qof la siiyey 331 waxay 431 waxay sheegay 41 waxay sheegay daawo khaldan oo qof la siiyey maxkamadda lama horkeenin qof dhahaaya dhibana ah waliba waxay ka mid tahay qodobada lagu dhaqaajiyo dalab dhibane
qof dhahayo anaa daawo khaldan laysiiyey oo maxkamadda hor yimid ma jiro 342 waa isticmaal iyo waxaa soo hara gudoomiye qodobadan kale 412 iyo 13 waxaa lagu soo eedeeyay daraagis inay gadaan nin tukaan leh shati leh ganacsigiisa ay banaanka wax yaala ay muuqdaan ciidamadii amniga ay joogaan waxa waaye daraagis inuu sagadin waxaana meel laga keenay ilaahay baa yaqaan waxa cajiiba oo aan gacanta ku hayaa xafiisku wuxuu soo gudbiyo waxa kamid ah sharaabadana kamid ah sharaabadan waxa waaye waa sharaabo loogu talagalay qofaca qalalan daray kafeega loogu talagalay macnaha qofaca laba qofaca jira qofac wax soo go'aya iyo qofac qalalan qofaca qaleelka loogu talagalay korkeedana ku qoran tahay waa sharaabo qofac waay marka sharaabo qofac in la yiraahdo dukaanka laga soo qaado haddana fal dambiyeed waay meel sharciga uga jirta malaha waxaa laga yaabaa inuu ilmihiisa u watay ama si kale asagu u isticmaalayay maadaama uusan ganacsi aysan shaqadiisu aysan ahayn oo daawo lagu gada ah daawadan waa daawo caadiya shati leh soo degto asagu ma samaynin arboor ka soo degto sifa sharciga ku taala waxa maca dalika qofaca oo qalalana loo isticmaalaa sharaabada korkeeda inay ku qoran tahay arinta kale oo meeshan ku jirto waxa ka muuqda kaniini qalajiya waxa ka muuqda sidoo kale diyaasba waxa loo isticmaalaa haddaan qofka dadka dhiigkarka qaba loo qoraa oo maaragta madax dejiye waaye waa dhiigkarka ayaa awal asalka markii hore daawooyinkan kale inta soo baxay asalka waxa loo isticmaali jiray daawadaas madax dejiye waaye haddii markas dhakhtar u qorayna waa way kale asagu isticmaalay haddii dad kale isticmaalayna waa way kale laakiin meeshan kama muuqato marka laga reebo arintan tobaakadu dadka mujtamaca Soomaaliyeed way isticmaalaan daraagis qofka oo maskaxda ka tagsiinayana maaha wuxuu la mid yahay qaadka iyo waxyaalahaas la isticmaalay la mid ah gudoomiye marka arinta waxa waaye qodobadan oo daraagiska iyo waxa loo isticmaalayo hal meel kama soo gasho shamuuri sababtoo ah tukaankiisi tukaan cashuurano la yaqaano hay'adaha amniguna ay yaqaaniin oo ganacsada oo ku ahaa waa marka arintan wax shaqo kuma laha qodobka 434na xitaa hadduu jiro waxaan gacanta ku haynaa heshiis dhinacyadu ay ka heshiiyeen 25tii bisha 2026 dhacay heshiiskaas wuxuu sheegayaa in dhibkii marxuum Khalid oo dhintay dhibkii dhimashadaas inay la dul saaray ay qaateen macnaha ehelka Cabdikariin Xuseen Maxamed ehelkiisu inay qaateen ka heshiiyeen lacagtii lagu heshiiyey qayb kamidana la baxshay isla heshiiskaas waxa ku qoran in maaragta dhibka dhaawaca ah oo la gaaray shamuuri laftigiisa in ayagana ay qaadeen Shaafici iyo maaragta sanaha kale oo la xiran falka meesha ka dhacay oo ahaa dhimashadii ehelkii Cabdikariina ka heshiiyey meel la saaray waxa xusid mudan gudoomiye oo aan rabaa inaan sheego xafiiskuna uu sheegay waxa ku qoran meeshan hor yaal waxa kamida microphone kamida sharaabada kamida kiniinigiya kamida oo aan sheegay waxa kamida maaragta qalajiyaha kamida sharaabadana kamida carfisa kamida toobaka kamida intaas marka laga reebo toobakada wax daraagis ah intaas hadda xafiisku ban sheegay ma jiraan oo anaga aan ka nood gareey ama qaybta aan gacanta ku hayaan ka qoray waxa intaas xusid mudan ninka la yiraahdo shamuuri waa nin dhaawaciisana dabcan heshiiskana waa ku qoran yahay dhaawaciisa dhibanaha dhibka koobaad uu ka bilowdana asaga waaye maadaama tukaankiisa loogu yimid culayskana halkaas uu ka bilowday sabab keeni karto in ninta tukaankiisa lagu bilowdo xabad lagu bilaabana sabab keeni kartaa ma jirto saas daraadeeda asaga laftigiisa nin dhaawac waaye in loo tixgelay dhaawiciisa falkii meesha ka dhacay oo dhimashada ahaana ehelkiisu ay diyadii ay qaateen heshiiskiina aan gacanta ku hayno dhibka asaga soo gaaray oo dhaawac ahna ehelka kale ay asagana ay xambaareen wax meesha ka maqan gudoomiye ma jiraan waxa soo haray arinta ah
arrinta ah ninka amiin dhaawaciisa aniga ma galaayo sababtoo ah qarinada kale ayaga sheegi doono soo wax hadda oo aan cadayna aan u hayana oo macnaha inuu isagu geystay shamuuri geystay ma jiraan sababtoo ah dukaankiisa dhexdiisa hal nin soo galay halka nin soo galeen inuu xabadda ku dhifto asaguna way cadda inuu ku dhiftana xaq uu u leeyahay sababtoo ah qof adiga dukaankaaga soo galay sifa sharci ku hub wato aan camba ku sidin inaa xabad ku ridid hantidaadana ku difaacitid xaq adiga leedahay gabagabada waxaan siinaa saaxiibaday ganacsiga maandooriyaha rabaa inaan ka hadlo guddoomiye meeshaan waxaa la soo bandhigay oo inta taalo geeddan waxaa la yidhaahdaa guddoomiye bee baa la lahaa geedkan kow kanna waxaa la yidhaahdaa taabuu baa la lahaa waa naqaanaa ma yahay maandooriye waay ma ahan maandooriye hadduu yahay maandooriye dekadda kama soo degeen markab laguma soo qaadeen dowladdu canshuur kama qaadateen هل إيبي لما دهن حمر وينا تجي ساحد حمر ججبا تجي دكامال وقضا والله ماذا إيبي تابوك إنها ولا إيبيا إيبي بيب كا دتكي هراء عبي جري حتى ويجي هراء أو طليانيكا أساس قضوبا أو أنت اللغش وتواكو أدب لغشيد جري مركزي على لوك جري كيو لسوء عسرية this is كاسو هيكن وحولي هاي جاجرا قلايو وفيريانيكا meeshaan marka laga furo guddoomiye jaajar aa galaayo bartaasaa jaajar ka galaya waa la buuxiyaa sigaar camalaa loo cabaa waa la gadaa dukaamankaa lagu gadaa maandooriye ma yahay ma ahan hadduu maandooriye yahay xukuumaddaa tallaabo ka qaadi lahayd xafiiska xer ilaalintaa tallaabo ka qabsan lahaa taas waxay ku caddayne dekadiioo ka soo degay canshuurtiyaa laga qaatay dukaankiyaa la keensaday qofkiyaa tagay waa iibsaday waa isticmaalay wax uma dhibayso haddee wax u dhibayso laamaha caafimaadkaa ka hadli lahay fayadhowrkaa ka hadli lahay waxaa ka hadli lahayd kastamkaa ka hadli lahaa laanta canshuurta ee booliiska aa ka hadli lahaa ma ahan waa wax caadi ah in la dhaho maanta taasaa maandooriye ah oo waxaa iibinaya dukaanle muxuu ahaa dukaanle shamuure iibinaya in la dhaho ayada laftirkeedaaba dembi ah ayada laftirkeeda aa dembi ah taas markaa dul istaago guddoomiye waxaa la yidhi hoysiin isticmaal maandooriye okay guri oo u kiraysan yahay oo hoy ah oo dad maandooriye ay iskugu yimaadaan ay wax ku cabaan ma la soo bandhigay xaashaa lilah waa maya lama keenin haddii la keeni lahaa guri ou leeyahay shamuuri oo inta la safariisto oo masawirka naga tusi lahaa dad badan oo safan oo wax wada cabaayo نعم وادعي لهذا لكن قضب كان محل وسوقات قدومي وقف وقعس لي وميزان وقدر مركب مقاضي كلام ميزان كانت مقاضي كلام انت انا قضب قدومي ميزان وشيء وبابا آية ماشي اسمر كان جوجنا مركب قدومي وحو قدر أفر بقول طبعا إيه لبو إيه أفر بقول طبعا إيه سدح أفر بقول طبعا إيه لبو حوليه استعمالت شراب لغو سكرام أوكي يا عبي شراب كله سقرامه يا بارس لقيه يا دكتور لقيه يا ديقيس لباره يا لغا سو هلي qodobka marka la soo qaadanayo wuxuu u baahan yahay asal in saldhig uu lahaado guddoomiye saldhigiisii haddii la waayey uusan jirin qodobkana ma shaqaynayo guddoomiye waxaa la rabaa inuu tiir lahaado qodobka hadduusan tiir lahayn qodobka waa waxba kama jiraan mudane guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh mar haddii aan la keenin wax markhaati ah oo ku caddayn karo mar haddii uu dhacay heshiis dhaqan galay ka soo baxay nootaaya public office dowladeed ay ku heshiiyeen marxuumkii iyo dhaawacii gaaray shamuure lagaga heshiiyey mar haddii aysan lug ku lahayn waxyaabahan la keenay oo daawooyinkaas farmashiya lagu gadaayo ninkan farmashi aan u furnayn kaniiniyaashaasiti farmashiya lagu gadaayo farmashi aan u furnayn oo shaqo uusan ku lahayn dukaankiisa oo laga yaabo xataa in meelaha laga keeno laga soo aruuriyey meesha laga keenay inaysan dukaankiisa ahayn aan ictibaarsanahay maadaama aysan jirin xaqiiqo lagu dhisi karo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in heshiiskaasi ay u tixgeliso kow labo in waxyaabahan la sheegay ay ka dul qaado saddex in qodobada aan hadda soo tiriyey mataqaanaa qodobada hadda aan soo tiriyey ee ahaa
325 326 341 42 343 aan wax lug ah ku lahayn ay ka dulqaado Shaafici iyo Saxnuuni sidoo kalena intaas qodob aan sheegay oo lagu kordhiyay 412 iyo 483 laga dulqaado isna Shamuurey in xorriyadoodii dib ay ugu celiso ciidankii ay ka tirsanaayeen dib ay ula howlgalaan si waafaqsan qodobka 122 maxkamaddu waa mahadsantahay waxaana qareen difaac u ahay eedeysanaha shanaad KS Nisa ama kormeere Nisa Maxamed Nuur Axmed Cabdulaahi oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada uu ku soo eedeeyay laba qodob oo kala ah 297 iyo 298 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedda loo haysto ah inuu ka caawiyay ama uu ka kaalmeeyay eedeysanaha koowaad dilka uu u geystay marxuum Khalid eedda loo haysto macmiilkayga ama muwakkilkayga waa taasa mudane gudoomiye eeddaas marka xafiisku maxkamaddu ay u akhrisay si waafaqsan qodobka 103 wuxuu ku jawaabay inuusan gelin eeddaas mar haddii eedeysano uu taas ku jawaabo waxaa waajib ah fuulaya xafiiska xeer ilaalinta ciidamada inuu caddeeyo si aan shaki ku jirin in dembigaas u dhacay caawinta ah eedeysanahuna uu galay uu yahay ninka galay ama qofka sida dhabta ah falkaas u geystay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh xafiiska wuxuu maxkamadda cadeymo ahaan u hor keenay waa baaraha kiiska wax kale oo maxkamadda oo hor keenay ma jirin baaraha kiiskana markii aan su'aalo ka weydiinay arrintaas ka kaalmeynta ah waxa ka jira iyo sida uu cadeynayo wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in uu Maxamed Nuur oo baaraha u sheegay in uusan bustooladda inuu meesha dhigtay dukaanka oo dhigtay inuu u sheegay mar haddii eedeysanuhu saas uu sheegay oo bustooladda meesha uu dhigtay aysan ahayn fal inuu ku kaalmeeyo aan loogu dhiibin baaraha iyo xafiiskuba labaduba ma cadeynin in ujeedku uu ahaay ama qasadku uu ahaay in bustooladdaas dhib lagu geystay inuu ugu dhiibay waxaan kaloo maxkamadda laga hor cadeynin in Cabdikariin uu u wacday markii dhib gaaray ama taagtaag la geliyay inuu Maxamed Nuur u yeertay saasna bustooladda ugu dhiibana xataa doodaas wixii goobtan la keeno kuma jirin filimkii nolol shiday oo inta laga shidana oo CC camera-ga ahayna Maxamed Nuur lagama arkaayo asoo galaya lama arkaayo asoo ka baxaya lama arkaayo baaraha su'aal aan weydiiyay goobta ay dhacdada ka dhacday Maxamed Nuur ma joogay wuxuu ku jawaabay waa joog laakiin wax cadeynaa inuu joogay iyo wax cadeynaa in bustooladdaas ugu dhiibay Cabdikariin inuu dhibaato ku geysto ama inuu danaano ugu yeerto ama inuu caawin weydiistay intaba mudane gudoomiye maxkamadda horteeda lagama cadeyn mar haddii aan saas arrintaas dhacdadaas aysan ka turjumaynin in falka dambiyeedka ku xusan qodobka 298 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah caawin in walxaha dembiga lagu geysto qofka dambiilaha ama qofka dembiga lagu eedeynayo waxa uu walxaha uu dembiga ku geysto ama u fudeeyay aan meesha laga cadeyn mudane gudoomiye eedda xafiisku waxay khilaafaysaa qodobka 23aad farqadiisa koowaad iyo labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed farqada koowaad ee xeerka qodobkaas waxay leedahay fal dambiyeed oo xeerku dembi uu aqoonsan yahay maxkamadduna noogu aqoon badanta dabcan inaan loo ciqaabin haddii aan lagu geysan ogaansho iyo rabitaan qofka dembiga lagu eedeynayo waa waxa inuu qasad iyo ujeedo inuu ka lahay in la cadeeyo waa ama dhacdadii la sharxay oo maxdarka hortiisa laga sharxay arrintaas laga fahmayo wixii inta mudane gudoomiye haddii aan marka si waafaqsan qodobada 110 iyo 163 mudane gudoomiye mar haddii aan la cadeynin fal dambiyeedkaas ka kaalmeynta ama ka caawinta ah ee ku xusan 298 muwakkilkaygan uu ku jawaab inuusan gelin mar haddii mudane gudoomiye 297 uusan dhacdada aysan xiriir la lahayn ay wax kale ka hadlayso xafiiskuna inuu iska fiiriyo intuusan ku eeday mar haddii mudane gudoomiye uusan dhacdadii meeshaan laga sharxay uusan ka dhex muuqanin wax doorana uusan ku lahayn muwakkilkaygu mar waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanaya kow inay muwakkilkayga ka dulqaado qodobadaas eedda xafiisku u soo jeediyey xorriyaddiisana ay siiso maxkamadda sharafta waa mahadsanta maxaa maxkamadda ka dalbanaya waxaan rabaa xorriyaddeeda inaan mar labaad helo maxaa maxkamadda ka codsanaya doodaan hadda laga taagan in laga cafiyo markaan la gelin
ninka wuxuu u dhiib maxaa maxkamadda ka dalbanaya maxkamadda waxaa ka dalbanaa maadaama ay jirin qof dhaawaca hadda aan igu dhegan ama dhimasho aa geysta ay jirin waxaa ka codsanaa inay xorriyaddeeda dib ii siiso u dhiib ninka wuxuu maxkamadda maxaa ka codsanaya waxaan ka codsanaya maadaama aniga dee sifiigayga aan sheego oo intaasoo weligay wax qalada aan liiga haynin markaana dee dhaawac aniga aan ahay dhib iga yim ahaan intaas xitaa aan suuligu aada aan bistoorideeda ka tagay waxaana wax qoran ay dhaceen oo anigana aan shaqo ku lehayn oo sida fiidiyowga arkaysa bilaaw iyo dhammaad meel uga jiro aysan jirin ninkan wuu sameeyey iyo wuu yeelo waxaan dhaafsanayn waxaan ka codsanayaa maadaama aan weligay ceebkasalin ahay in xorriyaddeeda dib liigu soo celiyo aadeen u mahadsantaa maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho